saddex sano ugu yar ilmihiisa asaa ii shaqayn jir biilo ii keeni jir meelaa wax ka keen maas kani waa dareen ka fog kan ay qabaan dadka caadiga ah indhahan maran cabsiduna ay ka muuqato waxaa dhaxal siiyey hooyadan murugo ka soo gaartay dil 9kii bishan loogu geystay Muqdisho wiilkeeda kaas oo uu jiray gaari ay leeyihiin ciidamada AMISOM inanta ay ayeeyada u tahay oo 3 sano jir ah una yar 4 gabdho oo u dhalay marxuumka ayaa dhabta u saaran waxaana qoyskan 4tii maalin ee u dambeysay ay u ahayd maalmihii ugu adkaa noloshooda ilaahay diraga cabsay dawladda ay sharci jirto nimankaas ay qabato meelaha ay saartaan wiilkayga way soo shaqayn jiraan wiilkayga ilmeyga yar waayo 13 sano ugu weyn marxuum Cusmaan Maxamed Abasheekh ayay ciidamada AMISOM jirsiiyeen gaari ay wateen isagoo shaqaysanayay dabadeedna waxay ciidamadaasi isku dayeen inay ka baxsadaan goobta balse waxa qabtay sida la xaqiijiyay ciidamada dawladda kadib waxa loo dhigay dhanka traafikada laakiin qoyskan oo ay u bidhaantay in cadaalad ay heleen ayaa lagu wargeliyay maalin kadib in la sii daayay gaarigii wiilkooda dilay haddii ay dhacdo in qof sheeganaya dawladdii inuu sii daayo ama ha ku daayo lacag ama ha ku daayo af ama ha ku daayo qori waxay un tahay un keliya ninkii Ugandeska askariga ahaa shalay warkii ugu dhahay oo ahayd aniga xoog ku deysana taasay la micno tahay waxa isbedelay mustaqbalka caruurta marxuumka oo hadda ay hayso ayeeyadood kuwaas oo waxbarasho la'aan ay soo wajahday sida ay sharaxayso Aniso oo ah gabadha ugu weyn caruurtan arday waxaan baran jiray hadana waxbarashada halka ay timid markii aab uu dhintay si aan dhankoodana u ogaano jawaabta ciidamada AMISOM ayaan la xiriirnay afayeenka ciidamada AMISOM hase yeeshee nagama aanu qaban taleefanka cali Cusmaan Abasheekh muddo laga joogo 4 maalmood ka hor ayuu geeriyooday kadib markii ay ciidamo ka tirsan AMISOM gaari ay wateen uu ku jiray isagoo wada jira shaqo maalmeedkiisa meel ka tirsan magaalada Muqdisho waxa jirtay dad badan oo AMISOM ay waxyeelo u geysteen waxaana qoyskan cali uu ka kooban yahay ilaa 4 caruur oo isagu dhalay oo gabdho ah hooyadoodu ay kala tageen waxaana hadda soo wajahay noloshooda xaalad culus maadaama caruurta qaarkood ay wax baran jireen waxbarashadina ay gaabis ka noqotay maamada ayaa hadda u shaqeysa caruurtan hadda noloshooda caawisa oo iyada qudheeda guri joog ah oo waxba aan qaban Munasar Maxamed Cabdi Goobjoog TV Muqdisho